iska wax u qabso waa habiyahanan ay bulsho ku horumarto dhalinyaradu waa udub dhaxaadka uu dal leeyahay ama lagu qiimeeyo haddii dhalinyaradu ka xumaato dalkaasi uu daga ama hoos dhac baaxad leh ayaa soo fasaara haddaba dhalinyaro ku dhaqan magaalada Burco ee istaantoodu tahay Dankaab ayaa waxay bilaabeen mashruuc la magacaabay Dalkaab oo dib u soo nooleynta bilowda magaalada Burco oo ah caasimadda labaad ee dalkan Soomaaliland badintani isku mid dooran qabiil ee waxa mideeyay dan wax qabsi iyo fikir mid ah haddaba dhalintani aanu kula kulanay biriishka weyn ee magaalada Burco xilli ay gudanayeen waajibaadkooda qaran ayaa waxa uu hadalkooda u dhignaa sidatan halkan maanta waxaanu ka bilownay mashruuc ah inaanu soo celino bilicda gobolkayga Togdheer gaar ahaan magaalada madaxdiisa Burco maadaama ay tahay caasimadda labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland run ahaantii ay bulshadeeduna aad u yara dayacan yihiin marka run ahaantii anaga soo abaabulay cidna fikir anagu naga dhex dhashay dhalinyaro ahaan anagu urur aasaasna magaciisana u bixinay Dankaab isagoo ka qayb qaadan doona shaqooyin badan oo ka jira gobolkan Togdheer meel kasta haday tahay inaad sharcigiisa doorto midabka nabadanaadkiisu biriishka weyn ee magaalada Burco dhalinyarada iyaga ah ee mutadawiciinta ah oo aan cid gacan ka siisay haba yaraatay haba badnaatay markooda hore aanay jirin ee ay yihiin koox iyagu iskooda isu abaabulay oo aan NGO iyo dawlad iyo tijaar midnaba aan ku tiirsanayn oo aanay maalgelin laakiin jeebabkooda iyo naftooda waxay ka soo jireen aqligooda iyo miisaankooda iyo gobolnimadooda iyo muwaadinimadooda kaga qayb qaadanaya in ay dhisaan ku heshiinay sidaanu bilicda quruxda magaalada soo saari lahayn maanta halkan ka bilownay waa biriishka magaalada Burco shaqadanu halka ka sii wadi doono annagu maxay hay talay waxaan ugu baaqanaa dhammaan dhalinyarada nala midka ah ee u socota dhulalka shisheeye ee tahriibaysa waxaan leeyahay dhalinyaro ay tahriibta hamoodina wanaag dhulkan aad ku socotaan aad u ordaysan nin adoo kala aba maal gashaday ama gabadh adoo kala kana shaqaysatay dhulkiina maal gashada ka shaqaysay yeesta kale aqoon-yahan Maxamed ayaa tusay bulshada ururka Dankaab kaalinta muhiimka ah ugu jiro saddex waxba dawlisa waa dhalinyarada iyo diinta iyo wixii lacaga ama xoolaha la isku farsado dhalinyarada haddii aan gacan la siin waxba inoo dhisi maayaan waxna inoo hagaagi maayaan marka dhalinyarada dhigaya maanta halkan waxaan u marin lahaa inay nagu daydaan oo gacmaha isqabsadaan oo ay ka baxaan qoloqolo iyo heer hebel waxa ka baxaan halkan dhalinyarada dhigayaga ah ee gobolka u dhalatay hable iyo wiilal fariinta aan u marinayaa waxa weeye in horumarka gobolka ay isu taagaan ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ay isu taagaan ay ka fogaadaan wax allaala iyo wixii caadifadu ay ku jirto ee dhalinyarada kala diraya isku soo wada xooriye ururkani Dankaab ayaa ah urur kaalin muhiim ah ugu jira bulshada Soomaaliland ee ay reegaysay qabyaaladu waa Cabdiraxmaan Ise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.